dadkan sida gaarka u soo casuunay orun ahaantii ku suntanaa bahda aqoonta iyo gaar ahaan Somali literature ama suugaanta Soomaalida hadday tahay guud ahaan macallimiinta Soomaaliga ka dhigta jaamacadaha iyo sekondariyada iyo dugsiyada hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale hawlwadeenada iyo maamulayaasha sekondariyada dalkani leeyahay guud ahaan iyo gaar ahaan caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale mas'uuliyiin fara badan oo nagala socota ilaa 5 jaamacadood jaamacadda Hargeysa Abaarso Gulis iyo Rift Valley oo iyagana si gaar ah casuunay dhamaantood la jooga waxaan kaloo iyagana aad u mahadnaqayaa anigoon kala qaadaynin bahda qoraayada ee sida gaarka wax ugu qora afka Soomaaliga ama luqadda Soomaaliga aan caawa u joogno madasheeda qoraayada iyagana si gaar ah soo casuunay iyo ururada akhriska ee qoraalka gaar ahaan ururada hal qoriyo ururka akhriska ee qoraalka Maxamed Mooge oo nala joogo gudoomiyihiisa Maxamed Salmaan Axmed Maxgabe ahna qoraa kamida qoraayada Soomaaliyeed soona bandhigi doona dhawaan buugiisa soo bixi doona buugii geela ee xirudaan waxaan kaloo si gaar ah u xusayaa qoraa Sacad Maxamuud Xaddi oo ah qoraaga kaydka xikmadda Soomaalida buugga la yiraahdo oo daabacaadkiisii labaad ay iminka soo baxday kii hore suuqa uu ka dhamaaday iminka waqti xaalka ay soo baxday xafladda ugu soo horeysay kan xigtana aan jecelahay in chance-kan uga faa'iideysto وحفلة كحكتة وحابن جدا أنو كمان دونا قراصة عبد محمود حدي يبوجي كيد كحكمة الصومالية وهابوج إن بدن دتكو أي نفع بدن كهلان سكوا نسوق وقوة حين عدامة نسخة فر بدن ولا قد عاي دتكو ذي يبسدين لو جنا مار مواين دي بلاد عاوة مركز تغييرات هذا عاوة فدية متشرفت وحن كبر على الجنينة إن شاء الله تعالى ضباط كأوه رأي بيشة إنه بندق أوه رأي إنه بند دونا بوجي كيد كحكمة الصومالية وقراءة دين يمكن لا فدية أنت هذا كل دافع محلنا وحين هو الرسول هاي أفكار يلو قدر مدلله هاي إنه يهاي كمرك والبحدارة ده يسوي كذا حمبارة سدوا كلا جودهان أقوم تلك الحكتيسة بيش عالم كورنا يقول نارون السنة وح حمبارة المر والبهور كذا كقيد قاتين إنه يهاي أفكار يحط بسيط لو تابك اليوم تاوى حمرك إنه فلان أفكو أما Soomaaliya هذا أما عربيها هذا إنه كم بدي هاي آية إنك آية وحويان أفك ما أنت وتاجن قار أهان عد كستو إسكوها وشا إسكو حلقانتا إن يا في Soomaaliya أما هورال كيسة أما حبقرال كيسة أي وحكي قبضه يا أدم هاستين وإنه يدرسي يا أبو يوسف شاعر إلهي سبحانه وتعالى حين قال كوي وحي وناسنا ويليا مغلانا ويليا وحي كما سكتك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عليكم السلام هذا يا صحافة يجودها بأخيار تعاو كلن كان السقوطيمي دور بقوله أما لا بقوله قف هدي ولا هذا وكوع السمين هاو سهلا معه قف يلا بابا لقى دمانين أنا بوقت أنا كنت لقى ليا وانكوبيا وايو Soomaalidu dhaqan bay leedahay hadalka hadii taagnida lagu dhiibo macnaheedu waxay u dhigan tahay soo gaabi hadal taagni lagu yiri xogdaloole ma waayay baa hadalka marka loo fadhiistaa laga dhargaa marka waa koobaya maansada intaan gelin aan kelmad ka idhaahdo hoos u dhaca afka way isla qirsan yihiin dadka wax daraaseeya iyo hay'adaha afafka baadhaaba af Soomaaligu inuu hoos u dhacay hoos u dhaca af Soomaaliga dhowr sababood baa loo aaneeyaa in afkeeni uu hoos u dhacay sababaha badan ee hoos u riday anaan ku dheeraanaynin kow afku muddo dheer ayuu isdifaacayay markuu joogay miyigiisii iyo deegaankiisii iyo dadkiisii iyo noloshiisii markuu afku dhex joogay difaac adag buu lahaa difaacii waa la jabsaday afku markuu magaalada soo galay ilbaxnimo la kulmay xadaarad buu la kulmay wuxuu la kulmay afaf ka xoog badan oo ka dhaqaale badan taasi waa kow sababaha hoos u wada af Soomaaliga talabaad af Soomaaliga hoos u riday waa burburkii dhacay
iyaduna waxyaabaha loo aaneeyo inay afka hoos u dhigtay waa ka mid. qodobka saddexaad waa tiknoolajiyadan casriga ah iyo dhalinyarada imika isla jaan qaaday ee sida daadka baashan tiknoolajiyada inagu soo jabtay waa sababaha iyaguna afka hoos u riday. moobilka aad sidato oo qura inta eray ee uu xambaarsan yahay wada af ingiriisi iyo haddaas taa tiri ayaanad ka dhammaanay. markaad internetka sii gashana ee whatsapp iyo facebook iyo feber iyo imo iyo lagu sii darana hadalkeeda badda. taasina tiknoolajiyadaasina waa meel loo aanaynayo. ta ugu dambaysay aan ugu dambaysiinaya afka hoos u dhigtay waxa weeye dee waxaa la leeyahay afka busaari buu noqday oo waa af busaaradeedo qolyaha kristanka ama islaamka waxay dhahdaan waa diintii gaajada. af soomaaliga afkii busaaraduu noqday. baalkii lagu shaqo tegi maayo, hay-adii waxba ka tari maayo, waa sida lagu doodo. dabeetana marka la yihahdo af soomaaliga maxaad u baran weyday xaggaan la qabanayaa buu kuleeyay markaan barto. islaamahaba ka odhanaya inanka hooy af soomaaligu dee waxba lagu cuni maaye af ingiriisiga igu dhiga. marka afkii busaari buu noqday oo halkaana hoosu dhac waa ka yimi. laakiin dhalinyarada iyo dadku waxay aaminsan yihiin haddii la yihahdo af soomaaliga baro dee maxaan ka bartaa buu ka odhanaya af soomaaliga waan aqaane. intanaynu ku hadallaana magaceedaba waxaa la yidhaahdaa suuqdi baa la yihahdaa. afafka magaalooyinka lagaga hadlo maaha inagoo qura, adduunyada o dhan afafka laga hadla magaalooyinka waxa la yihahdaa suuqdi. waa inta macaamilka lagu macaamila nolosha. qofka ajaanibka yimaadee sanadii nala jooga intan ay ku hadlaysaan wuu baranaya. laakiin afka xeeldheeridiisa iyo xikmadiisa iyo labeentiisu waxay ku jirtaa ama sugaanta ama miyiga. tusaalaan idin siinaya. haddii iminka hay-adi tiraahdo shaqaan hayaaye keena siifiyadiina ama waxyaabihii aad shaqada ku dalbanayseen oo markaa u tagtaan ay tiraahdo itixaankaba soomaali baan idinkaga qaadaya, qof waliba wuu farxayaa soo maa. waayo ma soo dhiganaysid meesha dee hadii la yihahdo soomaali baa itixaanka lagu qaadaya inaad garanaysabaad. dabeetana waxaa lagu yidhi itixaanku waa soomaali, laba kelmadood oo quraaba lagu weydiinaya. kow waxaa lagu yihi ereyga janis af soomaali noogu sheeg. dabeetana waxaad tihi janisa oo janis meen af soomaali ahayn. may baa lagu yihi waa ingiriisiye soomaaliyeed. de waxaad tihi waa fursad. kaasina waxa lagu yihi waa carabi. dabeeta dadkeenu waxaa ma aqaani ceeb bay u yar yaqaaniino waxaad tihi deni af soomaaligu ma lahaa erey janis u dhigma. markaa ninkan ajaanibka caddaanka ee itixaan kaa qaadaya isagu wuu haystaa, qoraal ahaan buu ku haysta halkan u yaallaa. wuxuu ku yihi miyaanad afkaagii ahayn? de maya waa kaygii. dabeetna wuxuu ku wuu leeyahaye ereygaa waa lagaa doonaya. kaa waad garan weydi waayi. erey labaad baa lagu weydiiyey. waxaa lagu yihi dukaan baad soo gashay, alaab baad ka iibsatay, lacag ma sidati. wuxuu ku yihi dukaankii moobilkan kaa reebaya. waxaa la yihahdaa rahmaad soo maa. waxaa lagu yihi soomaaliye. dabeetna waxaad tii oo rahmaad meena soomaali ahayn. waxaa lagu yihi me waa carab. iyana waad isweydiisay cabaar cabaar cabaar. weliba wuxuu ku yidhi laba eray buu soomaaligu u leeyahay rahmaad, labadaa midun sheeg. labadaba ha wada sheegi haddaad doonte. kiina waad garan weyday. itixaankii halkaasaad ku dhacday. ninkaagii ka baqayay PhD baa meesha kaa qaadaya jagada yar, waxaad ku dhacdayba af soomaaliga. janis af soomaaliga waxaa la yihahdaa kansho. af soomaaliga waxaa la yihahdaa kansha la yihahdaa. janiska wuxuu ku odhanayaa dadkii hore hadda odhan jiray imika ma yidhaahdaane kansho kuuma hayo. markaad la soo hadashee tiraahdo waan ku doonayay, kansho kuuma hayo buu ku odhanaya. wax janisa kuuma hayo. rahmaadda af soomaaliga marra waxaa la yihahdaa cudhaadh, marra waxaa la yihahdaa qabay. labadaba waa la yihahdaa. ereyo badan baan mar ku qoray jaraa'idka iyo internetka oo aan isbarbar dhigay af soomaaliga ereyada ah ee ereyada kale ee shisheeye ay ka saarayaan. iminka haddii lagu dhahdo su-aal iyo jawaab, qof kasta wuxuu inta badan dadku waxay u yaqaaniin inay soomaali tahay. soomaalina mahe waa carabi. innagu waxaynu dhahay weydiin iyo warcelin. maalin aanu meel wax ka sarrifanaynay ayaa gabadh weliba gabadh weyn bay ahaydoo inanka waxay ku tiri hooyo ii sirsir. markaasaan ku yidhi eedda maad af soomaali ku hadashay. markaasay tii miyaanu soomaali ahayn. markaasaan ku yihi may waa etoobiyaan. markaasay tii anugu soomaali baan moodayeyba.
mararka afku lumaa waa marka qofku yaqiinsado ee kiisi ilaawaba intaas hordhac baan ka dhigayaa maasadaa la sheegay ayaan gelayaa sugaantu dhaqanka iyo afka waxay u tahay sugaantu qaamuus erayada la waayo sugaantaa laga helaa marka maasadan waa tii igu adkayd intaan maasa tiriyey waxaan ugu talagalay afka maadaama dhallinyaradii quursanaysa af soomaaliga oo ay leeyihiin af soomaaliga maxaa de waan wada garanayaa bal mid intiisa badan aan la garanayn oo gabaya inaan tiriyo intaan xusuusnahay hal eray baan ku daray waxaan af soomaali ahayn waa erey la yidhaahdo arnaa-uud ereygaasaan ku daray waxaan af soomaali ahayn midna waa ka cudur daaranayaa oo sharxi maayo waayo sharaxu dee hawsha ana bar baan leeyahay idina bar baa leedi anigu waxaan leeyahay inaan tixdii alifo dabadeetana soo hagaajiyo dabeetana idin hor keeno idina waxaa leedihiin inaad rogrogtaanoo wixii macna ku jira aa kala soo baxdaan waayo markaad imika oday u tagto ama islaam u tagto ama ayeydaa u tagto ee tahda ereygaa ii sheeg erayo badan oo kale kuu sheegaysaa oo aad kasii faa'iidaysaaba laakiin haddaan kuu googooyo oo afka kuugu guro dee macna samayn mayso markaa sharaxa idinkaan diidaynaya maasadu waxay leedahay ururtiya laxaa sare afagaala caliyo ninka adhaxda jiilaal eegaama ladi jirin anna oonka lahashada umalkiyo wisiisiga waxaan ooda dhacameed ashqaraar u kala guray oogadayda laacdiyo ubixii billaan jiray sidaan ugu abtirin la awinkiyo aswaantiyo araxdiyo argeegtiyo agadkiyo adeentida orrobkiyo arbeebiga abaajiga asool kale awsaaxa jiifiyo ilmadhuu kolay tahay ardalkiyo amuunkiyo adamii tilmaanaa uusmiirka liitee nafta lagula eertiyo abqadiyo adaahida abxadiyo adarigii iyo aabigeedii alamaanku saaraa agabaraha geedkiiyo igmashada fartaagale ollogiyo ardaayada axdartiyo asaayaha awgiyo ijaabada adurtii la odhan jiray agloolkiyo anfaaciga arooskiyo agliilkii ajuurada wadaadkii eeraanka dheeraa agtilaalkii soocnaa amihiyo aboodiga axadhiyo akeekiga afariirka jaantiyo ayfaadka yaab kale arartiyo halhayskiyo ilma rogashadeedii erayada tasoobiyo afku inuu agoon yahay aqoon-yahan tilmaamiyo abwaankaama qarinine kumaad eersanaysa ayax guuray eel reeb aragtida xidaarkiyo wax la yidhi aftahankii aamus buu ku dhow yahay bayaxow odoroskii naafdhaladka eedee amin iyo godlayswaa asal oodan baan jirin runta abasaxeediyo abaraaqa waayaha ab ogaa warkiisiyo arnaa-uudka weydii ay garadka sii raac eelaweynta naaxdiyo baydari ugaadhsaday ishinkeeda raacdee ohligaad jeclaydiyo oqolaha halkiisii umal baa ka sara kacay aroortiyo aroorida ashkir inuu bariistiyo wax la yidhi adeeridu dhulka meel aftoolina kuma uunsi shidatoo aarmigu ma saacido waa agaali waranley iyo nugul abaareed carshintii aloogiyo calow darantii eexood alle waxay ka sugayaan cirku inuu mar ooftiyo arligoo ku doogsada ukulidii dareenkiyo uubatays ha joogee yaa irdheeyey waayaha yaa agoolka saanyaday aydinkiisa laaciyo ijadiisii yaa luray arbe waa yaqaanaa halkuu oosha mariyo oo limaa diraaceed udow weyne kuma furo aragti aradkana hanka u daran garashada abguurtiyo agoon waa qofkii madhan indhaha aragtidooday ilkuhuna waxgooyaan aadmigu isqaadqaad isagaan abuurtiyo aayihiisa faallayn damaciisa iibgee hadba aag u sii gudub nin adduun majeertaa indheer garata maahee iimaankii duug noqoy asalkiina laga faan adduunyada afbaa fura aqoontana afbaa qora dhaqankana afbaa sida
dhaxalkii awow iyo isirkana afka u mudan aathaarta duug iyo taariikhda aadmiga afka udubdhaxaadkiyo aqalkooda weeyaan ummadana hankeeda iyo ilbixeeda weeyaan ubadkana asluubtiyo aayihiisa weeyaan alif macallin baa dhigay iyo awgi weynaa shantaan inaad dhammaan sharxaya waa ragii af Soomaaliga qoray waxa laga soo bilaabaa Sheekh Yuusuf Kaynuun alif la kar dhibay alif la hoos dhibay alif la goday markuu yiri ayaa orabadana wuxuu ku soo yiri alif wax male waa marka la yiri sheekhow alif wax buu leeyahay wax male labadaba aad ugu yiri orabadana wuxuu ku soo yiri alif wax male inagana wuxuu ugu yiri alif la kar dhibay markaas yahan labada kala daa marka waxa loo celiyaa Sheekh Yuusuf Kaynuun baa bilaabay baa leeyahay qoraalka afka كنديد بيكو حجيان مسجل عليه إنك درويس كلون شيء بيكو حجيان ده بس نساسي وصوّدان إلا هنا الشرقاب إلا كدرة إلا محي إلا دل القريف رجاسا مركاي تحوس كاير بانو قديجي ألف معلم باقر ألف معلم بارديجي يا أوجي وينا كنديدنا أشي أركتيا فربو قري قال الأين جيسي ومدو وحوجتي شرقاب أمانيو وبحبا دول صارها كدرة وقال كي قرآن لوجو إيمان شري أفرحينو دداليو ولي أردكي مودين كاريانا أستامها أفكوا معنى شري أربعة شقار يا أخيارتي بربا مقن أبا الله حسوستي وتحدو وأبارتود أنت إلك تشيفتنا الله هو سما فرق تحدي هالكاسبان كويد لي يصدق حريبان شرحية أول يا أسوان أيام قبلها أول يا أسوان أفكر أكو هذا شان معها وأنا في صومالي بالمركز اللي يقولوا في صومالي كانت تقول هذا الشباب ما أنا كور كم بهذا الشيء ما ها أريدني أنا ذقونين أفات كو هذا الشباب معها وأنا في صومالي أفكر واحد لون قيبي الله ما يم حاتر بالي هذا ما يقوى ما أنا ما كلي هذا محاتنا وأنت كلام أول يا أسوان وحكوا هذا الله بيلها وعاوي إن قالت شو وري وجه وري وجه هذا أفكار لفتو سوافو باهن اللو قرمدو وافق يجا لفتودو وباهن الله طبقة بتهيو أول مركا وحوي وانن أول بالي هذا نكا شارب نوالي هذا دري نوالي هذا أسوان وكبد إلقاء نوالي هذا معناه دورة بيليه أول يا أسوان مركا هالكاسن كسوقات وحنا كلام كودراي أردلكيا أمومكيا أضميت المعنى وصدحنين أردلكو ونلقى في عينه أمومكنا وأنا ما نعبري كراين وحدوني أما سكلا هذا نقول وأنا آمس بدن لكن أدمي وامحي أدمي وأنا نسنا أدمي دور شوكته حيوانك والله بقيبه وقيبته وقارد هاي نعنو قيبنا وقيبت اللي هذا خبر دقاق اللي باح عليه ورابه عليه وحاله قيبتها خبر دقاقة وحكوت شراء قار لقى قناعصده تصالحان مرودقة فول كيسة ولا يبيع شباب كهرب كيسة ولا يبيع ويش كيس كذا ولا يبيع نك وحيابها صار لا يشيش كذا يقانا يالله هذا آدمي حسين حسن قبياق اللي ورد شري أيا يجوا الريان بوحيلي أربعيال مرودية هدي آدم صار لا يو وحصاء قاربه هدو أودل سوقليو سيل عباب رجاء هيد مقارنة قوي هنا كنعسك مركا أدم واقع وحن هدنا كل دراي أروسك يا أقليلك لما هالكاس كحجة أقلول يا أقليل مركا أنا بحين نقول يا أقلول يا أقون يا أقول وين مسوي سدح يسكدو أقون يا أقلول يا أقول وقرنيسا أقلول يا أقول هو حوي يا أقول كان هو أقول هو حوي بلا آدم كشير كيسة أسكا جلا لما ميلاد بوجلا بدنا شركو جلا بدنا مدحو جلا أسكا كشير كواحد تحب أسكا كمدح جلا أقول بالي هذا في الصومالية تحب مدح يجيك الشيء صح معه وهذا أنت بدك أساسي هذيك السنة لكن صح معه ويو إرجعنا ديالو ماي أقول بالي هذا
uskagaa madaxa ku dhasha aglool baa isna jira aglool waxa weeye marka weelka qabada ah la tolo ayaa wixii lagu shubo weelkaasi wuu cabaa dabeetana waxa la waa la xoolaynaya waa la agloolaya baa la yidhahdaa maxaan haddaba anigu yidhi arooski iyo agliilkii kan kalena waa agliilkaasi isna waxa weeye aroosku berigii hore 7 casho ayaa la odhan jiray uu 7 baxaya aroosku 7 casho socon jiray habeen la yihahdo gaaf habeen wax kale la yihahdo 7 casho socon jiray soorta 7 casho arooska la siiyo yaa la yihahdaa agliil 7 casho aroosku raashinka uu cuno waxa la yihahdaa agliil Soomaaliga agliil baa la yihahdaa erayada dhowrka eray kooban baan macneeyay wixii dambe su'aal ka dhasha waa jawaabtooda iyo ogaalkooda akhyaarta kale aan uga baxayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idin leeyahay intiina xafladdan ka soo qayb gashay iyo saaxiibkaynu caawa marti u nahay yuusuf shaacir yuusuf maa qasar horta yuusuf isagu intiisii halkan af soomaaliga ugaga hiiliyey runtii waxaan leeyahay inkastoo dhowr reer ayaga ka hadlay haddana wuxuu tiriyey gabay qaaliya waan dambaysiisanayaa afkaa uu sheegay yuusuf oo maan jeclayn inaad naga barataan laakiin dhowr rey baan idiin sheegi doonaa waxaan se hadda u kacay afka soomaaliga quus baan ka taagnaa ismaan lahayn intanu tolaagu leeyahy caawaan idinxantoo markaan arkay intiinanu halkan fadhiyaa ayaan wallahi idijiilaabay gashay intaasoo af soomaaliga u kacdo u hiilinaysa dhiman maayo ninkii wuu noolaanayaa afkeenna ilaaha way noo daa sacabka waxaan idin leeyahay wax yar haddaad dul qaadataan qadar sabitaan yar adkaysataan alla leeyahay oo talaabiiley waa ha qabeeli doontaan sacabka waxaan idiin sheegayaa afkeennan soomaaliga ah waa af qaaliya waa af runtii muddo badan soo rafanayay hadda dhibaatadan haysatay waxa ugu horreysay wixii 72 ka horreeyay wuxuu ahaa af lagu hadlo waan laba qorin taasa horta intiisa badan lumisay oo waxyeeladii uu weynid u geysatay muddadaa uu ahaa oo maanta haddii ilaahay ina gaadhsiiyey inaynu qorro oo afkeeni qormay oo rag dhalinyaro ah oo intii naawiliya dee boqolaalkoodii ay qalinkoodii wada candhuufaysteen oo nin walba uu qorayo tol baa u kacay dhiman maayo af soomaaliga waa been af soomaaliga wuu noolaanaya sheekadii u dambaysay ee hadda aan dadkan ku habaaye markay ka soo dibiraan hadalhaynta qabyaaladda ku soo xiiqaan siyaasadda iyo murankeeda waxoogaa bahalkan geedkan jaadka lihaan ay soo liqaan fiidka iyagoo cadhaysana qalladooda ku soo hoydaan baan ahaa dumarka cadhadaha kula dhaqinacaya carruurta soo qaata 50 sheekiyo sheeko 2 ka midun akhrista idinkuu qoslaya seexda qoraal waan ugu habo way dhammeeyeen ba hadda oo buuggii mar labaad baynu qori doonaa insha allah haddaynu tol inoo daabaca helo waxaan qorayaa qolooyinka wax qoraawo yara garaya arrintaasoo xaggaa waxbaa naga yara haysta ilaahay noo sakhiray waxa weeyaan markaaynu hadda waxaan soo wada bilaha 100 sheekiyo sheeko laakiin sheeko aan hamaynu iska sii daayay reeryogaad moodaa inay xafladdan ku habboon tahay walyaho ingiriisada waaweyn tawaaweyn ay ugu qoreeto islaantu isma liyaho oo anagu qaraabo nahay oo had iyo jeer sheekooyinka aan ku soo darsado ayaa macdaar bay furanaysay waa dukaan xaafadaha iyagaasay ka furanaysay marka midri eedow tahay ee dhajay ee kaale kiina hebel ingiriisda yaqiinay ugu yar markuu yimid shawariyayna hebel soo ingiriisda mutaqaanaha dukaan kana furaya board ingiriisda ma ha yar yar tawaaweyn ay ugu qorbay tawaaweyn هذا محل كفريسة قاسيت ويا وحكي سد كان أنا إنجليزي كقرين قبل بدأ وأنا لك والبحث وويلي وقربت سد هاي بالمجا عايشك هرير كيا كقربت هرير كيا دكان غير البتاع وإنجليزي كقربت دكان غير البتاع وإنجليزي هنا كي
dhowr cisho la maqnaa boorkii uu soo qoray oo waxay tiri dukaan iyo bakhaar weyn markaa wuxuu soo qoray ingiriisi intuu yaqiinay isna wuxuu yidhi Edbataag shop and store boorkii markii lagu dhajiyey ayaa mid yaroo ay iyagu taho xoogaa ingiriisida kiciyaan ayaa arkay Edbataag hooyo ayayo oo Soomaali buu kugu qoray subxaanallah waa Edbataag waa iyagu intuu ka jir soo qabto wala soo qabto ninka waa maxay la tilmaamo qoro ingiriisi igu qor markaas waa ingiriisi ku qoray waa maxay Edbataag markaas soo reerkiini ma hadii Edbataag oo ingiriisi qorbayt markii xiiqi batay ayaa yarkii u yeeray baa intaayay kare ingiriisi garabaayo war waxaan la yaanaga heels up tribe والله marka hortay meel basaas ugu qoran yahay wadheelkani wuu mahadsan yahay waa wadheelada aad u jecelahay laakiin maamulkiisana waxaan u sheegayaa xafladda halka ku qabateen caawa buug baan noogu qaybiseen aad ku xayeysiinaysaan wadheelka waan ka xumay iyadoo ah habeenkii Soomaaliga inaydan eray Soomaaliya ku soo qoran buugina وأنا قلت له يلا وأبغى أخليك كلام إنجليزي وين بقول شو وين تصل أنت وحلايا كمل يتفسير الصومالي كملوا الرتبان فلتكان إن أنا جاي يوسف يا ريض وقاطي ركبان لك توصاري لكن أفضل وهذا الله ما أفضل يلا نقدم reeraha anu ka koobanay mid buu la hajadiiro gooni u leeyahay waxa weeyaan marka aad la nooshahay dadku daran dad kula dhasho hadana ku cadaadinaya dad jacayso ku necab maxay u keen diray garan maayo dad adigu wuxuu qabanayso farsameeyaqaankiisii tahay oo aan bahda noolaanba karin laanta oo hadana adiga nolosha kaala dagaalamaya ka tira badan isla markaa وين أبو سامي ستانير ومركا أي بلاي كنت ما ضاع وسكت رهيق على أنت كمان واحد شلون مكا وقت المامها أنا أقول لما هي أول أوبريتات كلا عداد يوم ندوك ماشي دونا كنورا ذني أيها على أفكار أنا يشيء حتى لما عندي قري حتى لما مكا هبلي مكا نيشا إيريبان الكويرة تحتورا يا إذا فاهمين مكا عندي هبلي أنا أقول بريتن توتان هايو مركا أي شيء جيان reerahaasi ninka aan iyaga ahayn waxay waa talaamin miin macni inaga mahwi marka maanu taqول tibi ducee maxamedow markaasaan duceeyo ayaamay roobka maqlaam galanaysa asaan ilaahu roobna si ilaahu dalka noo hagaaji ilaahu madaxda noo hagaaji ilaahu bisaaradda naga dulqaad ilaahu dadkayga colaada ka dhaxsaan ilaahu qabyaalada naga qabo oo naga qawlan ilaahu marka ducadii wadi yaa ilaahu talaamin jala ibaan beerka naga fadhiyo dooru bas aamin salaam alaykum baadti horta waxaan doonayaa caawadayda waxa lagu yidhaha Soomaaliga baa halkan lagu wadahayaayo waxaa dee yeelay ninka reer Bartoloonahay aad wadaadka ilaahay ka soo koobmadinayo وأنا كنت أتوصل أقول له هذا وحال يسوي شيء باشر يسوي وقال قياسي سوى كلام يا ولد سبحانك يا علي وكان واحد شراء الصومالي الشاعر صدح علي أما صدح الرمال أي الآن بلوزه كذا تعالى هاي بلوزه تدرى وكان هو رسالة نيكي لون شري شيخ يوسف الكونين ورني والله اسكو هيا الصومالي مو قريب سقوا يجريون تعرف لكم بيوالي يجريون كسرنا ربنا نقول لكن الصومالي كمان تندي شيء هي أو تفتح لهم رحمه الله نكاس الصومالي قريب ما هكينا ديد بلا ما نكلا ما هم تلاقوا دي شيء يا ونك الصومالي هكرتي الصومالي لا نسي هكرتي دولة الصومالي لا أي هكرتي وشخص كل يكون طلما ومسجل عليك قراءة الصومالي بروك يان بيلي شيء يعني كلورني به والإسقى قرين 19 في كون يسقى بقولي شن
كنت يلحدي أيو أفكر إمك هل كان كفر يوسف أو قرني كلام الكيسي أيو غير لكن نسيت الرب وأنت الله عن عيد قبل يقول شو ما أنت لكن واحد يشيء أنت إنني هنا قالتان إنه يسوي اللغة القري يسوي عاونية وش أنت المسكين اللي هذا نيجي لمقولين هديك عن كيو هنولا تدي داقول كوتي وهوس حاجة هو كلي وانكحهم هاي ما أنت إن ليلة هذا كيلو بوهري يوسف هذا موسى قال هبل والله أنا حالي كسي إن كلمة هي آياتها وكذا والله موسى قال لي بقول كسوة كل ترى الصومال معها واحد انتي معها تدكي سنو ويدنا لكن تدكي ما بقوهي هي ما أصوص مدون والله ما قرأني وحاضر كيسا ما أنت الصومال لأنه حتى دولتك خشافة ساعتين دي سكندري قديكتان إن أنا الصومال اللوردين يا أبصر إنجليز وحكو ديكتان إن الكيوروني دماشي كنت لي والدماشي خاشسي أو صومالي في إنجليزيو بالسرير سوتا ما يتقالنا في إنجليزي وحان تعلم هاي لا صومالي قبلتان وحلا يدو كله ويعني وربا صومالي انتو كي يقالوا كل يبون لغة كلا برتان والله إن أنا اللغة كلا باران كرين أدوا في صومالي كبر باران كل شيء انت الصومالي كتقالمو يعني كيبا ما تيوري كلمة كلام كبير وسأل فهمتها في الصومالي بتكون لسبب كيبا إلا في الإنجليزي كما دلني في الصومالي أظن كل هذا يلا في الإنجليزي لبرتي انت في الصومالي كتقالمو اللغة كلا باران كرتا تاسين وقتا الصومالي اللي ولد لما قولين أما الله ما دين وحلا هذا جرامرك أما النحو هو تقالنا ولد لما دين ولد بقول بيلك صوصاري وأنا وحكي لي إن أكاديميك اللي أنت الله يسوي معه إريد بحين إنك بقول في إنجليزي غوريا فيب أما ألف مجع كله ما بيحكره وأيو وحلا دورتي إن أي قاتل إريد بحنتها حتى بس الصومالي يقول أنتوا يسوي معه إلا أكاديميك اللي إريد بحن لقاته بس عنيسو وأيو تسارع للنسينية بس تنس واحد يقول هذا إنجليش أيها الأرجيسة بوجاك الصومالي دقورته مركان يجي نوح قري تكتر تكتي نوح قري العدل العدل نوح قري تكتر العدل نوح قري فلتجي أفر تابوك مركا أفر أرضي أي صوك الله أخرستان إيميس وضفرديان بس تنس ليل هذا أفر تاسي كالورانيان واللي ما تضحيس إني واللي ما يسوي غيري بحلو الله بحي كل يسقال بقول يسقال شديد ستي ديما بوكس بي ولينا والحياة ما دوني يقول حقول لكن ما كأتكلم أكاديميك اللي لقاته إري بحل أيامكم بهدول دول أمر كاس الصبح إن شاء الله هدي عن ولاده كل واحد صحي له وهو فلتجي صومالي ده عياني ولا بمركي عي بردوتي قبل كوكسون كذي اللي حكيت يسمو وحكو قرطي بقول يكو أفبا صومالي قال لك الله إني قد دعوعي روتين عنك عروضي وهاي dadka yiraahda Soomaali waa may iyo maxaati waa been Soomaali waa Soomaali afmay waa afmay والله ummadood baa ku kala hadla هو نار جلاسة تين بدي يعني معناه هو ما Soomaali ما هي marka سبحانك يا عدي وولي عسيت ما هعف الشنكر أوقف بواحد دنيا العفكة في الصومالي قال لي هذين يتعالج كريان وهدي هذا ضد الصومالي النقطي وأنت أنت مئة صوماليون أفكة محاتي محل ممكن هذه لك هاي معلومتي ورمي وأفكة وأف أيضا قرر شليل يا شبلي حاسة مشي حاسو عني سلاش وباسة شتى سلالو شكل يجسد أنت صار صومالي أنت ورمي قرر سا وشليل يا كل يجي شبلي حاسة شباب مقدانا مسلم ماشي حاصل كلام حد قال لي شو صلاة أنا إصلاح الله وأفكر ولد أوي لكن أفصل ما وتوالدي وربي أمريكا أفكر ما يم أحد ما أف ما يقول هو ماي أفصل ما هو كين وحي قال طب أنت تصب ولما ما يجي بعد سي هوس بريس أفصل ما هو ماي يم حد يا ما حد وأفكر هذا كلام كيسو
waxay kulanayaan adduunyada ilaahay markaad eegto waa literature grammar naxwiyi adab ama qawaacid af soomaaliga grammarku waa inta qalin iyo google lagu qoro ee aan nin gabyaaba yidhahdo waxbaan tiriya aanu keeni karaynin ina la ta ja ba ha waxaas weeyaan grammarku markaan halkaa ku qoro waa iyo ta iyo la iyo soo midina magac ma leh micno ma leh kelmaduna waa laba xaraf iyo wixii ka badan haddii aan yara dhaqdhaqaaqo wax sharxayo oo soo right waa yara libaaxaya raalaad marka waa demeel garanaysan waa dhawaaqa magacyaalka ta waa maxay la waa maxay soo waa maxay afarta midna macna samayn mayso haddaan fal tegay iyo su-aal sameeyey iyo magacyaal ku dar waxay noqonaysaa waa tumata la soo guursaday haddana afartii haddaan mid ka saaro macno male waa tuma la soo guursaday waa tuma la guursaday taadi baa ka saara mid macna samaynaysa male waa falkaabkii meeleeyihii xoojiyey adkeeyey markaa garaamarka muxuu waxaya af soomaaliga waxaa la yidhahdaa dhisme iyo dhaqan waa aniga feeshankayga waa tayda hadhowta aynu la tegayno dhaqankuna markaa wuxuu noqonayaa literature dhismuhuna waa siday usoo dhismaysay erayga weedha iyo tudaca muxuu kala baxayaa magacoyaan haddaba lu fiirso fal tegay fal gargaar meeley xoojiye adkeeye jiro iyo sif intaasoo kala baxaya xoojiyaha iyo adkeeyaha ku soo kordhay oo xoojiyaha adkeeyo waa maxay bah baan ku uri waa amar waa faal baxdi baad sac iyo iib ku dartay mise waxay noqotay baxsi waa nin jeelkii ka baxsaday amar la-aan tegey iid iyo sacdii baan isi soo weydaaniyey bixis bay noqoto waa nin iska baxay adkeeyaha xoojiyo waa kuwa horta kow waxaa imanaya oo aan doonaya inaan ka hadlo ah xidaalka oo yuusuf gabaygiisa ku jirtay afagaal iyo haddaad maqasho bayaxo iyo babac iyo coomir iyo jidbarle iyo jidraqle iyo jidbarbar iyo waxa weeyaan habeenada aynu leenahay soddonka habeena bisha ayaa meelaysa waa godadka dayuxu fadhiisto xidigaha weheliyaa ayaa markaa la raacaa markaa had iyo jeer mooraa la yidhahdaa waxaa solar systemka adinku taqaanaan mooradana waxaa la yidhahdaa maluug iyo meecaad maluugtuna waa 7 faraaciga iyo 7 dirirka meecaadkuna waa 7 naafada oo dawladii sheegay iyo 7 ciidanka markaa waxay kala leeyihiin 28 labada hay'ad labada dibada la yiraahdaa shanta yagtiiska ah ee ku jira Soomaaliga bilihiisana waxa la yiraahdaa shanta lama tabe ninta sayama tabariyo 7 maalmood bay leenahay waxaan idinku sheegayaa kalendarka xidaalku inuu afkan yahay afkii ugu horeeyay ee aadamaha Ilaahay baa ku hadlaan wixii ifka ugu horeeyay la keenay inuu ku hadleen hadda aadan iyo xawa ifka iyaga lagu maabuurin meel baa lagu maabuurin ifka waxa ugu horeeyay qof dhasha dadka Ilaahay abuuray way yimaadeen waa falsafada buugaan idin soo aadan iyo xawa inta ifka lagu maabuurin waa la keenay ifka wixii ugu horeeyay ma dawo dhashay hooyay aabay ku dhashay وقابيل يا هابيل إني أفكر هذا يبان عدينا يعني أو دي ما هو كلنا واش وهاد كلا تاسي وكنت وخيسا مركا معلمه محل نقول يا معلمته هو رئيس سور رجال إلى سور رجو وواحد لقى سور رجال يا دوا جمعي كوين لا بالله تكوكورا حكي سياح كسر وتضبط عشاء الصومال والهاين ما قال الإنسان إسكت عن تام أفكر هذا بس يقولون أفكر ويقولون كلية يوسف كراعي مركي لقي يبي مقالة اللي يبي أنت بدأ تقف كوريس عايكاس كوريا سو معها وعلى سمعت وين ولد كذا ونحسن عنا سو معها بس تسوي قصة سو معها وحيدة وحضرك يسأل ما كان إذا عندك هذا مصروف كوريا هبلاي هو أفكار فراتي إذا كو عيبه وتقالنا قبل دمر ولا قرية ونحسن عن هذا اللي أقول buulka markay ku jirto ay hadlaysa aan la maqli jirin gobonimada iyo wanaagii milkaha u dhalatay marka la yiraahdo wallahi islaantii ilaahay caawa afkay furatay daadbinis waxa ka hadiyay gartabayida la siin jiro loo jiray waa laga gardaray ilaahay waxa ka hadiyay eraygu horta sidaas oo maanta waxay qooraya faysal cala waba afka furtay xaraam calayk heblo afka furtay waa koob waxay qooraya suldaan heblo furka tuuray فك محوطه ما حما إلي وحبوب قريناي سلطان بوها مسؤول بوها لنا قول كيس حمانتي سلم مغرب بوها
marka la yidhahdo wallaahi ninkiisu shaacir furkuu tuuray waxaa la odhan jiray garib buu leeyahay ila waa lagu ogaa wanaagee furkuu tuuray yacni waxaan kariyey ee furka ka soo tuuray ee hadalkiisaba bannaanka soo dhigay waa laga gardarayey saasay ahaan jirtay waxay ku odhanayaan hebeloo ka dhawaajay war maxaa laga dhawaajaa horta war ilmaha yar marka habeenkii maqriboodka la dilba ninkaa weyne eeg xawlaha mayalaanku kaga dhawaajinaya ilmaha yar buu ka dhawaajinaya ka dhawaajiyey waxa ay tahay ilma yar iyo mayeelaan بلد كده وجبت كل الموصل بحيل كده واجي وبعو كده واجي واو يعني صحافة الميشة جوتا وحيابها يكون هذا أفكو مركز صولوما أفكو مركي وخلوما مركي هو يدي علمه أف إنجليزي كل عربتي مركي هو يدي جامعة هاي وحنا ونبري جتي يدي يعني أفكي بكرانين وين كده مركي مدرسة وين معاو على دول ما يوسك عادي إن كده يوسك عادي إنك رسول يوسك عادي ما عادي أنت على بعض الناس هي بفرد ويا هذا سبحانك يا عدي واللي كان كهسي أفكو قوم أفكو حلو ما كان واضح الشرطين له ما كان أفكو مولوي أفكو وشوع إلي كارلوسن دتك أفكار لهذا المدير يوضك لهذا المدير دتك يوضك يا أفكار لها سيسو سينيا دتك كله اللي مكين له واحد مدة دتك يوضك له شيء أفكار لها اللي سيسو سينيا وأي صوص عدان ويقولون حق اللي بصعدان في تعريبي نيجه دولته هوس وحياة بفر بدل مركا وحن كسر جميلة وحلو أفكار يكون يسقى بقول النبي تطبعتك وجه وردي بمعنى الكلمة مركا صلوه مركي ما صدقنا قال لي ورق الله قاتي وكون ما صبر يرسم ما صدق أبيع ودار بسيس بس من الحكمة مركي من السيج اللي تري تقول ولا يعبر أي مرة مقاشة مركي بيسير لي يقول لي بدل الحين مي أنا هاي ما سايق قبيعة سقال بقوله بيج بس اللي هو يا أخي مع كتابة قريسة ولا توفي سوء إن واحد سوى لما غيا بضح مع صلاة وبضح برضو بقولها اللي كده بس كوليا كمتى كسبي ما تشا كسبي يا هو قبلها هاي ما حد بيجي ده تقولي من هذا سبحانك يا علي بهاش ما كاسين تقابف الموت ما كواحد أفكو وحلوي مركي قليل يا ورقة الله قاتي إيه الواي سياد برأوت بيجي وحفظ التاجيرة وبالموسى قال كوكو هذا إنه قرّه تركيب دبيت رابطة لينو يسوق أرسيوه لبعضهم واحد سيدا شاني بعويس اللي كانوا يقولون بدل الله وعمته إيه هذا كامل الدولين مسخوش الجري ولا صار اللي فك كاسي كطالع هذا كله جالسي أو عمته بدخل كنا كعادته وحنا كلنا تنيا عقل يقول كده هي أنت اللي وجودها عقل يقول كده هي أنت اللي وجودها والأفكار الأسرة وذاك كوري الله يلعبها صدق واحد أيها الكلام قال ما أنت أقول كل يوم سمعت كو وحولي وأنا أقول لك تعلقات وضعك علمية كذا وصدقت أنتم قتليا وأثريا لمك إلى كوري هالكلام قال وإلا جنا ما حيلود ديني نفس ما لقينا كل غلوب على الاعتراف كله سبحانك يا عديم رحم الله موسى الله فاتح هذا يوحي المدة من النبي واحد اللي توفت هذا الأمر ملك عن حيسته نيك كذب به وموسى قال وجهنا وحلايا حتى الذي نيمك وبيلا قالوا أنك أهو ولا تشتكي اسمه يوم بسودي يتوه المالي ولا المطير إنه أنا في المدينة اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سيدي وشاقي أبوابكم هذا التاجنان الوجودي به وصاكوب waxaan xusayaa oo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Abu Yusuf Shaacir martida kale ee la joogta waji iyo cabdi goodabees iyo dhalinyarta habliyeen ama leh bahda aqoonta ee ka soo qayb gashay xafladan soo bandhigida maansadaas marka koobaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa abwaanka oo aan jeclaystay waxa kaliya u qaban karnaa waxa weeye inaan u duceyno inuu ilaahay u barakeeyo xusuusta iyo caqliga iyo magaranaysaa dadaalka uu sameeyay oo aan ku amaano waxay u dhalatay inaan siino shahaado sharaf kooban abwaanka waxaan ka codsanayaa inuu ii soo yaro kaco isagoo mahadsantiisa
wuxuu kuugu hambalyeynayaa doorka muuqda ee aad ka qaadatay ururinta kaydinta gudbinta iyo kor u qaadista qiimaha afka hooyo gaar ahaan suugaanta. aad iyo aad isaba kaala sharafta had iyo jeer waxay ka turjutaa faraska waxaa jeeralka loogu dhushaa orodkaa kasii kordhiyo waxaa insha allah waa sii daraali doonaa. waxa aan tilmaamayaa hal qodob, waxa aan tilmaamayaa in badan waxaynu ognahay, waxaynu isu sheegnaa dhaliisha, waxaynu isu sheegnaa afkeennii wuu lumay, waddankeennii wuu burburay, waxyaaba badan oo kala duwan baynu isu sheegnaa. waxaynu isu sheegnaa dhaliil, waxaynu nidhaahnaa afkeenu wuu lumay, waddankeenu wuu burburay, waxyaabo badan oo dhibaatooyina bayn ka sheekaynaa. waxaan u baahannahay dhibaato in badan baynu isu sheegnay ee qofku inuu wax qabto, macnihii doorkaaga shakhsigaa inaad qaadato. tusaale ahaan afkii wuu lumay, wuu burburay, waynu isla ognahay. adigu miyaanad shakhsiyan ama qof ahaan aanad wax ku darsan karin? tusaalaan idiin sheegayaa, anigu tusaalehaan dugsi baan maamulo ka ahay. waxaan isku dayaa inaan ku shaqeeyo afka Soomaaliga. shaambada dugsiga ee wax lagu shaambadeeyo waxaan ku qoray dugsiga sare ee Xalane, ta dugsiga hoose waxaan ku qoray dugsiga hoose dhexe ee Xalane. moobilka lacagta lagu diro waxaan ku qoray moobilka dugsi magaca Soomaali baan ku qoray. maanta ma la soo helayaa dugsi loo diro lacag moobilkiisa oo uu ka soo baxaya inay af Soomaali? hadday jirto cid wax qiimaysa waa wax u baahan in la baaro. ma la helayaa iskuul boardkiisa uu ku qoran yahay ama dugsi boardkiisa ku qoran yahay af Soomaali? waa lagu diidaya, waa laga hor imanaya. macnihii qofku keligii inuu wuxuu awoodo qabto waxaasaynu isu geegeynay ayaa lagaga bixi karaa dhibaatooyinka badan ee ay sheeganayno. maanta markaad Hargeysa marayso waxaad joogtaa London, maxaa ka nasiib daran qof hadlaya oo doonaya inuu hadlo amaba uu dad fariintiisa gaadhsiiyo oo garan waayay cidda uu la hadlayo? maxaa ka xun qof halkan soo istaagay raba inuu ganacsado haddana garan waayay cidda uu la hadlayo waxay fahmayaan? maanta ganacsigeena ka ugu sarreeya tusaale ahaan waa halkan aynu joogno, waa Dahabshiil iyo Telesom iyo waa meelaha ugu sarreeya. waxaa ku qoran fast money transfer you can tax. يعني هذا يجوا international يهين نينك كاريون ككرينا ما international با رنتي كابا كبران أما با محكور هذا ديفيد كاستا الصومالي مركا إن شاء الله بالله كريم محرجين ليا دور كيرنا الشخص جا إن قادرن دون إما كان نينك هو جرح سنة يا عدة وقبضن تيصالان وحكوش اللي هو الصومالي يعني قف كيو جرن واحد عدة والله حتى يوحد تصيصا جميسي كمسكين إيه فيشن كبران ماشان waa maxay baahida keentay in ereyga lagu dara? tusaale ahaan waxbaa la soo qorayaa, dawlad baa la soo qorayaa, government baa qaws la gelinaya. waa maxay baahida keentay in lagu daro government? macnihii ma waxa loo sharaxayaa dad Ingiriis oo waddanka jooga kuwa malaa aan fahmin Soomaaliga ayaa ereyga loogu daraya. insha Allah bidilaahi kariim waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu qof kastaaba qaadan doono doorkiisa shakhsiga ah. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa abwaanka keliya waxaan kuu qaban karnaa ilaahay iyo cid kasta oo qayb ka qaadatay ururinta iyo kaydinta iyo magaranaysaa in xilla iska saara afka Soomaaliga. golaha gurmada abwaanadan aad ugu mahadnaqaya. abwaan Yuusuf Shaacir waxaan leeyahay ilaahay ha kuu barakeeyo xasuusta iyo xoogga. salaam alaykum. aad iyo aad u mahadsan yahay maamulaha dugsiga sare ee Xalane. شباب فضلا صومالي كوري ما كان بدي فضلا ما فضلا نبي عربي او عادة ما عربي الصومالي بدي الى حتى عندنا ما ودي ما تصير يقول ما تبي شرط على تسوي تكلم عن ودي لها برنامج
ugu horreeyay shaacir aan ku bartay ahaa cambaro nooc iyo mutawarawan waraysi laga soo qaaday cambaro ayaa waxay sheegtay inay waxaan ka socotay 2 habeen shaacir oo haya waxa ku qoran inay socotay sanado badan oo habeenba meel iska helayo aroosyo badan lagu qasamay labadaas su'aalo la weydiiyay markaa Yusuf midna waxa weeye eray aan af Soomaaliga markaa waxaad laga yaabaa in qofkaasi ba garanay ama af Soomaaliga inaan wuxuu hayba laga yaabo oo u baahan inta rag khubaray ka fadhiistaan in eray bixin hoos anu fadlan waa arkay badan oo isweydiinayo af Soomaaliga ku garan maayaan ama walaal ama adigoo iga raaliya ayaa ugu dhow markaad la macnayna adoo iga raaliya waxaan ku weydiiyey adoo iga raaliya saaysa laakiin eray fadlan u dhigmo af Soomaaligu leeyahay malihii ma jiro laakiin anu garan maayo asbaabi hurriya cambaro anigu waan tabinayay ma ahayn horta kuwii isu heesayay ma ahayn xilligaan mabaan jirinba 4 balaas marka aniga sidii ay taariikhda igu sheegeen un baan u soo tegay wax uma qarsan marka markii hore waxaan ku horreeyay hurre waxaa kale wuxuu sheegay inay muddo socotay gabadhaa ay isu heesay haddaad dhegaysataan wax habeen iyo laba la isu tiriyay waa arkaysa inay ka badan tahay oo cayaaraha heesahooda afraafka ku gaadaysaada marka taasna jawaabteed waxa weeye aniga sidaasay u soo gaadhay ana sidii baa ku soo taliyey haddii iyaga iskhilaafaan oo midna yidhaahdo habeen bay socotay midna yaasaad bay socotay taas iyaga dhex tahay si loogu garanay karo laakiin anigu intii aan ka maqlay ma sheeg yaa Yusuf Shaacir aad uu mahadsan yahay wuxuu yidhaahday weelka marka la aslo waxaa la odhan jiray abool anigu abool ma soo gaadhin laakiin waxaa soo gaadhay weelka marka la xooleynayo waxaa la odhan jiray abool anigu abool horta ma maqal caawa igu horeysay laakiin waxaan maqlay weelka asal hala aslo weelka tirta geedka maxaa la yidhaahdaa geedkan lagu aslo asalka laga sameeyo iyadoo maxay inta la soo diro meedhadiisa ama jilibtiisa inta la soo diro inta la kariyo iyadoo weelka marka qabadii la kalo maxay ahayd fuudkii geedka laga kariyey lagu aslo marka asalkaas soo gaadhay abool ma waxaa la yidhahdaa marka dufanka xoolaha la mariyo maxay ahayd weelkii qabada hay la sameeyaa la yidhaha abool mise maxay ahayd waa isku macno oo waxay noqonaysaa abool iyo asal isku mid bay noqonayaan su-aashaas weydiin lahaa cabdigoodna aad ku noo canaantayo aadku nagu canaantayo aadka horta idinka halkaa soo gaadhsiiyo maxay ahayd bahdilaada inta haleg ugu wanaagsan waayo anuu garaadkii ugu horreeya ama caqligii ugu horreeyay waxaan yeelana waxay idin 2019 meelahaas ahayd dee weli maan adag iskuul inta aan tago laygu idhaahdo maanta waxaad baranaysaa af Soomaaliga ku baraynaa af Soomaaligii marka ku barno waxaan kusiinaa shahaado markaad af Soomaaligii barato horta aad tiraahdo af Soomaaligii baan baranayaa shahaadada siinaysa waa noocan waxa lagu odhanayaa adeer Soomaali baa tahay maxay shahaadada ku falaysaa doorta afka idinka haleeyayo weli maan arag abwaano ama suugaandhaadhi ahaad ama qaraaho ama abwaanow ama weriyahow dugsi inta furteen aad tiraahdeen dugsigaa kaalaya kaasan waxay nagu barana shahaadada siinaynaa waa maxay ahayd PhD baa ugu sarreysa la yidhaahdaa Soomaaliga idinku heerkeebad ka taagan tiro PhD ma gaarsiinaysaa markaas anagu u kacaynaa su'aalo kale way farbadan intaasaan kusoo gabagabeynaya afka idinkaa dili waan leeyahay ama chance kansho ayuu ku martay markii la macneeyay laga yaabaa inay qadan tahay dadna ila qabaan laakiin waxaan weydiinayaa su-aasha ah fakaar wax weeye ereyga fakaar ma la macnaa isoo ka duwan yahay taas waa su-aal talabaad waxaa tiri ereyga quran isticmaalay inaan Soomaaliya waa arnaaud waxaan ku maqlay gabay hore waa tirada oo taa arnaaud arnaaud waa qaranida labkeeda ereyga marka ma Soomaali ba isticmaal kale oo labada erey ayaan ku su'aal maasoo المشروع iyo silsilad suugaanadiisii la oran jiray oo ahaa qoraageeda tabiyaheedana uu ahaa
in aan ka weydiyo halkaaladii oo aniga aqoontayda igu adag kolley badana bulshada iga fadhidaa ay ila qabto. waxaad tidhi abaajiga asool kale ayaa maasadaadi ku jira. abaajiga inaad noo micnayso iyo awsaaxa tilmaanaa awsaaxana inaad noo micnayso. labada erey waa maasaday ku jireen. ka ku jira silsilada Sinley Cambara waxaa ahayd gabadhii Caasha silsiladaasi ku jirtay. waxay tidhi saxan hooyadaan inay dhasho saanta kula jiifo oo sal iyo maandhow taqaan soona kula quuto sina waa kugu noqon siika ka higaad. haddii ereyadiiga qaldayna abwaankaa ii sixi doona. aad baad u mahadsantihiin. mayda salaam meelaha ama waxyaabahan saddex meelood baan u cuskaday af Soomaaliga aan ama maasada ku soo daray ama aqoonta kaleba u leeyahay. ini waa in aan anigu garanayay waa koow. ina waa in aan ciddii aan tuhmayey aan weydiiyey waa laba. ina waa in qaamuus aada u weyn oo guriga ii yaalla nin la yidhahdo Cabdullah Mansuur iyo kale gabadh kale qoreen ereyada ku jira si ay u sharxayeen iyo kii hore ina Kennedy qoray labadaa qaamuusba aan u cuskado. waddooyinkaasaan u maraa si aanan dee dadka u jahabaabin oo aanan waxaanan anigiba garanayn aanan dadkii u sheegin. taasi waa ta guud. aan usoo noqdo su-aalihii ta inanta aglool uu ku yaalaa qaamuuska markaan eegayey. waxaanan anigu qabaa aslida iyo agloolku inay kala duwan yihiin. saasaan qabaa. agloolku waa xoolaynta marka weelka la xoolaynaya qabada ah ee la nafaqaynayo weeye aglool ereyga la yihahdaa. taas sidaas baan iga jawaabayaa. inankaasi wuxuu weydiiyey fakaag iyo kansho waxaan qabaa inay kala duwan yihiin. fakaaga imika gurigan oo kalaad ama meeshaa la fadhiyo o kalaad oran kartaa war iyadoo fakaaga yar sameeya si ay noo qaado meeshu. yar fakaag badanoosaa sameeya. laakiin kansho wakti kuma hayo wey ama chance kuma hayo ayay kansho noqonaysaa. marka ereyada waxaa garan meel la iskaga dhawaadaan laakiin kala macnana noqdaan. waxaanay kutusaysaa kala macnahaasi balaaqada af Soomaaliga iyo xeel dheeridiisa ayay kutusaysaa. ninkii kale wuxuu weydiiyey abaajiga iyo ereyo ku jiray silsiladii Sinley. abaajiga waxaa la yihahdaa xoolaha luma ee muddo dheer ka bacdi la tago. weliba marka reerku kun ariya leeyahay oo kale reeraha xoolaha badan bay taasi ku dhacdaa. kun ariya reerku hadduu leeyahay neef iyo laba iyo saddex iyo tali maaya. heesay qaada Khadra Daahir oo lahaa ninkii la odhan jiray u dhintay Cabdulqaadir Xisi Yamyam ayay ku jirtay. naftan ku oomanaya ku abaajideen ee kugu indhala u shamaado qaban ku abaajiday. marka abaajigu waa wax lumay oo halkii laga tagi lahaa waxa lumay. waa imika inta furihii ama mobilka kaa luma aanad xasuusan be aad gurigaaga iska tagto oo biri mooye saa dambe aad tawdo mobilka. abaajigu waa ka Sinleyda awsaaxa waxaa la yihahdaa masku markuu gaboobo ee cimri dhaafo ee timaha iyo wax walba ka dhamaadaan ayaa awsaax la yihahdaa. nin horaa iga horreeyey oo yidhi afrikay barhkoodii dajeen labada awsaax isagoo maagaya siyaad barreeya nin kale isagoo isku xidhay. awsaaxuna waa kaa. Sinleyda dee su-aashaad weydiisay buugaan ku qoray jawaabteeda haddaad akhriyi lahayd. aan kuu saxanay waxa weeye saxan hooyadaa nimay dhasho saaka kula jooga aad saliya maandhow taqaan soorna kula quutay sina aan walaal kugu noqon siika ka higaadsa. waxay ka hadlaysay Soomaaliya iyo Djibouti waa walaal bay leedahay. iyadu waxay aaminsan markaa in Djibouti la midowdo Soomaaliya. marka waxay leedahay Djibouti iyo Soomaaliya waa isku dad qura laakiin isticmaalkii baa kala dhex galay. saasay wada labada qof ee walaalaha ee lagu kala dhex jiro. inankaa taladiisa weli sharax ma hubo markii aan cudur daaranaya hore inuu joogay kale. waxaan u diiday sharaxa dee inaad hawsha dhalinyaradu lafteedu ay ila wadaagto oo haddii aan kuu googooyo hilibka
oo afka kuugu quro oo kuu soo kariyo oo kuu geeliyo aduu maxaad qabanaysa waad cunayaa keliya baad ka adagta mid baa mid ku yidhi xabad sigaara yidhi markaasuu dhiib markaasuu kabriidna yidhi markaasuu ma af qaliyaad sidaata adu markii hore marka bahashi in la soo googooyo la geedeeyo oo la kariyo afka lagugu guro dee way adagta inay wada suuro geli maysee bahashi waynu wadaagaynaaye anna waan tirinaya meelihii adkaada aad u taag weydo waad weydiinaysaa laakiin waxoo dhan inaan sharxo dee way adag tahay waayo erayadan adagba maan xusheen haddii aanan sharxaynin